بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسك عاوة إن شاء الله تعالى حاسكو داي درسي كصاب في سن الفوز أو الفوز العظيم، the great success. قول goorma la odhan karaa qofka bini aadamkii wuu guulaystay guushii kama dambaystahay? maxaase lagu qiyaasaa guusha? miqyaas ama measurement ama halbeeg ma leedahay wax lagu qiimeeyo oo la odhan karo qofkaasi wuu guulaystay kaasina ma guulaysanin? guud ahaan waxaynu ognahay bini aadamku ereyga guusha iyo najaaxa iyo fawska iyo tamayuska iyo muuqashada wuu jecel yahay. marar badanna iclaamka maanta jooga waxaynu maqalnaa iyadoo marar badan lagu celinayo ciddaasaa waxaa ku guulaysatay. fii caalami ariyaada waxaynu maqalnaa hebel baa guulaystay, tiim hebel baa guulaystay, ciddan baa guulaysatay. fii caalami aliqtisaad sharikaadka waaweyn shirkad heblaaya ku guulaysatay waxa kan. wax badan oo bini aadamku uu ka warramayo oo dad guulaystay laynoo sheegayaa jira. laakiin xaqiiqadu waxay tahay goorma la odhan karaa insaanku wuu guulaystay? maxaase lagu qiimeeyaa guusha? ma markuu adduun helo, mise markuu magac helo, mise markuu sulto iyo maamuus helo, ma markuu caruur helo iyo reer iyo deganaanshiyo, ma markuu shaqo helo, ma markuu higher degree iyo shahaadaad fiican jaamacad macruuf oo la yaqaano ka soo qaato? goorma la odhanayaa insaankani waa insaan nolosha ku guulaystay? waxay ku xidhan tahay wax badan inaynu garanno hadaf ilxayaa. maxaynu u nool lahay? why we are living? maxaynu u joognaa dunida? maxaynu ka qabanaynaa? waayo ahdaafta bini aadamku uu nolosha ka leeyay waxna waxaa la yidhahdaa waa ahdaaf marxaliya, waa goolis dhadhow. ardayga yaree iskuulka ku jira goolkiisa koowaad waa inuu iskuulkan ka gudbo, shahaadad yar uu qaato. hadhow haddana markuu tan ka gudbo abuu goolis kala yeeshaa, ahdaaf yaryar oo kale uu ka gudbo. laakiin waxay isweydiinta le wax oo dhan isku dar, ma huwa hadaf ilxayaa? noloshaba muxuu yahay hadafkeedu? waayo wax lama qiimeeyo ama fawska ama successka ama guusha lama sheegi karo haddaan hadaf la xaqiijinayaa jirin. markaad hadafka aad xaqiijinayso aad garato oo yool aad leedaho yoolkii aad gaadho oo aad ku guulaysataa la odhanaya hebel waa guulaystay. su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay maa huwa hadaf ilxayaa? nolosha oo dhan markaad maxay gaadhaa baad guulaysatay? what is the purpose of life? maxay tahay nolosha hadafka ka dambeeya? dadka badh bini aadamka ka midi hadaf way arki kari waayeen weyn oo noloshu ay leedahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyay kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu addunya ila mataacu lguruur. ilahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala kullu nafsin daa'iqatu lmowt.
naf waliba way dhadhaminaysaa geerida tan waad ka tegaysaa mahmaa kunt wax kastoo aad qabatay magac iyo maamuus kastoo aad yeelatay hanti kastoo aad yeelatay waad tegaysaa maxaa ka dambeyn ilaahay wuxuu leey wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama ajarkiinna ama acmaashaa qabateen midhaheeda waxaa laydiin dhammaystirayaa baa layidhi laydiin oofinaya adduunka intaad joogto waxyaaba yaryaroo successisa waad gaadhi kartaa laakiin hadaf ilxayaa ma aha ama guusha dhabta ah waxaad gaadhaysaa natiijada kama dambaysta waxaad gaadhaysaa goolkaagii ama yoolkaagii ama meeshaad ku socotay waxaad gaadhaysaa marka aakhiro la tago aakhiro marka la tagana miisaan qura yaalla bes faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faaz baa ilaahay qofkii laga dhufto naar la dhaafiyo naaraan gelin jannana gala faqad faaz baa ilaahay kaas baa liibaanay xaqiiqatan kaas baa liibaanaa ilaahay leeyahy ama adduunka iyo wixii lagu hayo o dhan wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur baa ilaahay nolosha adduunna wax kalaba maaha waa mid la qalday mid la kediyey mid maqruura mataacid weeyaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala wuxuu birbirsado dadka kuwa nolosha dambe garan waaya maalan fi sabciiniyaat falaasafadii dunida ugu waaweyneyd nin ka mid ah filosof faransiisa oo falsafa alwujuudiya existentialist miyaa la ydhahaa falsafadan la ydhaha qolada rumaysanayda ayaa wuxuu arkay xaaskiisiiyo qoslaysa dabeetana miduu geliyey wuu dilay bulisku la hadlo wuxuu yidhi waxaan dilay xaaskaygii qaanuunku shaqadiinni wixii a u baahnayd in bulisku ha qabto waa akbar caql filosofi faransa buliskii way yaabeen hebel professor hebel oo caqligii faransaba ugu weynaa waxaa lala hadlay janankii booliska haystay wasiiru daakhiliya la gaadhsiiyey madaxweynehay tagtay giscard ayaa madaxweyne markaa ka ah kan iminka hogaaminaya dastoorka yurub ay qoranayso madaxda waa giscard baa waxaa la yidhi akbar filosof cindana ba haweentiisii xaaskiisii dilay maxaa la sameeyey waxay yidhahdeen caarun calaa faransa an tacqila caqlaha waa ceeb bay yidhaahdeen maanta faransis caqligii ugu weynaaye u lahaa inuu xidho musixa caqliya ha la geeya baa la yidhi meelaha dadka xanuunsanaya madaxa ka jiran lagu hayo ha la geeyo ninkan su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan muxuu u dilay wuxuu leeyahay nolosha tan baan hadaf lahayn filosofkan wuxuu leeyahy noloshan aan joogo hadaf ma leh whatsoever aan noqdo buu leeyahy wax kastoo aan qabto wax kastoo la sameeyo soo la dhiman maayo waxaan arkayaa buu leeyahy natiijo aanan dhaafi karin sida awgeed nolosha gebigeeduba waa cabas buu leeyahy waa cayaar nolosha gebigeeduba mar haddaan wax ka dambeeyaaba jirin wax kastoo aan noqdo mar haddaan kollayba dhimanayo waxaan sidhi buu yidhi kollayba haweentani de way dhimanaysaaye maantay faraxsantae iyadoo faraxsan dunida ha ka tagto iyadoo qoslaysuu dilay kollayba way dhimanaysaa marka malaa hadday joogtaa laxdaday ugu fiicnayde iyadoo faraxsan ha ka baxda dunida waxay leeyihiin dagaal lama gala bay leeyihiin aad og tahay inaad jabayso ciidanku haddii la ydhaha dagaalka waynu gelaynaa laakiin waa layna jebinayaa ciidama dagaalamaysaa hadday xaqiiqata in lagu jebinayo dagaalku macno kuma markaad rajo qabto ee inaad guulaysanaysa ama wax jebinayso dagaalku qiimo samaynaya wuxuu leeyahay nolosha tan haddiiba la dhimanayo maxay qiimo leedahay wax kastoo aan soo sameeyo soo ka tegi maayo
therefore wuxuu maan dooran karaa buu leeyahay laxdada aan ugu farxad badanaya inaan ka baxo. That's why maanta Yurub qaanuunyahanadeedu xorriyaadka ku doodayaan waxaa ka mid ah xorriyada ah qofku naftiisa wakhtiga uu doono inuu ka takhallusi karo. waa xorriya ragu doodayaan inaan dhinto markaan u baahdo. wasaaradda caafimaadku bay leeyihiin qofkii u yimaado yidhaahda waxaan rabaa nolosha inaan ka tago waa inay aqbashaa inay nolosha dhaafiso. waa tii loo dhistay in nolosha la ysku hayo oo dadka lagu xejiyo nolosha. waa maxay macnuhu? waxa weeyaan the purpose of life baan la fahmin. waxa la garan waayey maxaa loo nool yahay. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ina leeyahay markaa noloshan adduunyada geeri waa qasab inaad dhadhamiso. waxaad see ajarkaaga ugu weyn helaysaa maalinta qiyaame. ee guusha dhabtii waxa weeyaan baa ilaahay leeyahy faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz. qofka naar la dhaafiyo ee janno la geeyo kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi. amaa haddaad aakhire arki kari weydo wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. idan ayuha alikhwa, aragtida islaamiga waxay sheegaysaa nolosha adduun waa imtixaan. nolosha adduun waa ibtilaa. ibtilaaga noociyaadkeeda unbaa kala gedisan, laakiin noloshoo dhamme waa imtixaan. noloshan waxaad u joogtaa in questions laguu dhiibo oo jawaabaad ka bixiso. haddaad caafimaad qabto waad imtixaamanta. haddaad bugto waad imtixaamanta. haddaad faqri ku jirto waad imtixaamanta. haddaad maalqabeentahay waad imtixaamanta. haddaad baqo qabto iyo colaad waad imtixaamantay. haddaad nabad ku jirto waad imtixaamanta. nolosha gebigeeduba waa ibtilaa. ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay tabaaraka aladii biyadihi lmulka wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala wahuwa alcaziizu alghafuur. aladii khalaqa almowta walxayaa liyabluwakum baa ilahay inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum ayuhum axsanu camala إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. nolosha ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay un imtixaan. imtixaanka beyjka adiga kugu soo baxa uun ansarkaad ka bixisaa la sugayaa, jawaabtaad ka bixiso. hadduu nabad iyo nimco iyo barwaaqeeyay hal tashkur, ma shukri naqday intaad ilaahay ku caabuday. hadduu dhib iyo mushkilada noqdo hal sabirt, ma sabirtay intaad xisaabsatay ilaahay dartii. walidaalika ilaahay wuxuu ina leeyaha faxasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa tarjacuun. ma waxa u malaynaysaa in dheeldheel laydiin abuuray? ayaxsabu linsaanu an yutraka suda. bini aadamku ma wuxuu u malaynaya in layska sii daynayo, sidaa in lagu daynayo? maya. ilahi wuxuu leeyay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun ila liaamuruhum bilcibaada ila lilibtilaa bitakliif. bini aadamka wax kale umaan abuurin baa ilaahay leeyay jin iyo insiba inaan imtixaamo takaaliifta sharcigaa in lagu imtixaamo mooyaane. asli alcibaada waa min fitrat alinsaan bay idhahdaa. bini aadamku sidiisaba waa caabud, laakiin waxaa kala gedisan un wuxuu caabudayo. mar hawa nafsi buu caabudaya, mar doolis iyo asnaamu isagu samaystuu caabudaya, mar rabu samaawaati waalardi buu caabudaya, mar naftiisuu caabudaya. waxa uu caabudayaa bini aadamka kala gedisan. walidalik buu taarikhyahankii Greeg ahaa Plutarch wuxuu leeyahy qad wujidat fi taariikhi mudunun bilaa xusuud wa mudunun bilaa qusuur wa mudunun bilaa madaaris walakin lam tuujad abadan mudunun bilaa macaabid. in history taariikhda bini aadamka buu leeyahy
waxaa la helay magaalooyin qadiima oo aan qalcada lahayn. waxaa la helay buu leeyay magaalooyin waaweyn oo qadiima oo aan qusuur iyo lahayn daaro dhaadheer. waxaa la helay buu leeyay magaalooyin aan schooling system iyo waxbarasho lahayn. laakiin fi taariikh lama haya buu leeyay magaalo aan meel wax lagu caabudo lahayn. taariikh alinsaaniya waxa archaeology qoday, waxa wax la baadhay lama haya bay leeyihin magaalo bini aadam uu ku noolaan jiray oo aan meel wax lagu caabudo lahayn. walidalik Plutarch mar kaleba wuxuu leeyahay ina madiina bilaa ardin taquumu calayha ashalu min qiyaami dowlatin bilaa ilaah. magaalo inaad dhista aan dhulba lahayn, yacni waa wax yara mustaxiila, meel aan dhulba ka jirin lagu idhaha magaalo dhis waa mustaxiil. taas baa ka fudud buu leeyahy dowlad bilaa ilaaha inaad samayso, dad aan waxba rumaysanayn. yacni insaanku waa bifitratihi buu caabid yahay, laakiin waxa isweydiinta leh yaad caabuddaa, xoolahaad caabuddaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy tacisa cabdu dirhami wadinaar tacisa cabdu lkhatiifa. addoon waxaa hoogay ka dirham iyo dinaar addoon u ah. inaad lacag ururiso haddaad u noolaato iyadada caabudaysaa. cimrigaaga, xooggaaga, caqligaaga, tamartaada, waxaagoo dhan waxaad isugu geysay accountkaagu inuu bato. accountkan waxaad ka isticmaalaysaa waa wax yar, laakiin inaad badiso. dadka badh baa u addoona guriga ahaadka yaallown inuu bedelo. maantao dhan buu soo shaqaynayaa, bilaal la wadayaa waxaa la odhanayaa fadhigaa la bedelayaa, waa la wadayaa qolka seexashadaa la bedelaya. waxaad addoon u tahay alhabtanun inaad bedesho modaliskeeda. That's the purpose of your life. noloshaada hadafkeedii intan baad ka dhigtay, cimrigaagii waxan baad ku bixisay, caqligaagii, xooggaagii, maskaxdaadii intan baad ku bixisay. idan insaanku cibaado kama maarmo. afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah baa ilaahay yidhi. ka waran ka naftiisu waxay doonto ka dhigtay waxuu caabudo. haddaba insaanka waxaynu leenahay miqyaasu alfawz, inuu guulaystay iyo inuu guuldaraystay hal miqyaasoo keliyuu leeyahy. noloshaadoo dhan marka la isku soo duubo. sheekhi zandani baa wuxuu isugu yeedhay niman khubaroo dhakhaatiira, markaasuu cilmi tashriix u ka waraystay. bini aadamku wadnuhu muxuu qabtaa, muxuu taraa, muxuu jidhka ugu jiraa, waa la sharxay. beerku muxuu taraa, keliyu muxuu taraa, kani muxuu taraa, waa la sharxay. kadib wuxuu yidhi waxaan oo dhan ahdaaftoodii garanay, marka la ysku wada dare uu qof noqdo ka warrama, maxaa loogu talagalay isaga? that's philosophy. kani maaha cilmigii dhakhtarka ee waa philosophy baad ka warramaysa. wuxuu yidhi haddii acdaada qofka bini aadamka mid walba waxa loogu talagalay la gartay, waxay marka la ysku daro, haddaad gaadhi sharaxdo oo tidhaahdo taayirku waxan buu taraa, injiinku waxan buu taraa, steerinku waxan buu sameeyaa, daaqaddu waxan bay samaysaa, marka la ysku rakibo gaadhigu muxuu taraa tidhaahda garan maayo ka warran. hadafku wuxuu ahaa gaadhiga wixii loogu talagalay inuu garano, baartiskiisa may ahayn. insaanku maanta nool in badanoo ka midi waxaa la garan la'ayay waa maxay hadafkiisu. markaad hadafkiisa garataa baad garan kartaa goormuu guulaystay. waayo hadafka markuu gaadho buu guulaystaa. ninka 100 mitir ordaya markuu dadka ka soo dheereeyo xariiqdii loo jeexay uu ka soo tallaababa la odhanaya waad guulaysatay. waayo hadafkii baa la garanaya, goolkii lagu socdaa la garanaya. ka kubadda ciyaaraya labada birood oo meesha laga taagay markay caagga yari uu dhex maro ayaa la odhanayaa gool la qaylinaya. waayo uu guulaystay, hadafkii buu gaadhay. wixii bahashaba loo ereeriyey waxay inay halkaa ka baxdo. haddaad noloshaba garan weydo marka hadafka laga leeyay, waxaad u nooshay haddaad garan weydo abidkaa guulaysan maysid. se waxaad guulaysanaysaa markaad waxa soko oo dhan u arkayso ahdaaf marxaliya. ee hadafkaaga weyne, goolkaaga weyne, yoolkaaga weyne wuu kuu cad yahay aad ku socoto. waxaanoo dhammin ay u adeegayaan yoolka weyn.
haddaad xoogsanaysaa, haddaad shaqaysanaysaa, haddaad guursanaysaa, haddaad aqoon baranaysa, waxaan oo dhan waxaad u adeegsanaysaa inaad ku xaqiijiso maxay hadafka weyn. markaasay nolosha macno samaynaysaa. ilaahay qur-aanka markaa wuxuu leeyahy faman zuxzixa cani innaari waudkhila aljannata faqad faaz qad aflaxa man zakaaha waman yutic illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima. nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiisku imaamu muslim soo saaraya wuxuu leeyahy ruba ashcafa madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi la abarah. badanaa buu nebigu leeyahay qof basaasaysan oo albaabada laga celiyo, yacni madaahiri dunya kama muuqato, hanti ma haysto, muuqaalkiisu waa basaasaysan yahay, ma aha dadka albaabka loo furay markiiba la yidhaaha soo dhowow. dadka badh magac iyo maamuus iyo xoolo iyo waxbuu leeyo albaabada loo wada furaya soo dhowow baa la leeyahy. dadka badhna laa ya'bah bihi axad, cidina uma dan yeelato. kuwa caynkaasaa jira buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, oo hadduu ilaahay ku dhaarto waxa uu ku dhaartay ilaahay rumaynaya. hadduu yidhaha wallaahi saasay noqonaysaa, ilaahay sidii uu sheegay uu ka dhigaya. yacni cinda allaahi wuu ka maamuusan yahay, martabad iyo mansiluu ka leeyahay. walidaalik baa rabu samaawaati walardi dhaartiisa uu fulinaya. ama cinda albashar albaabkaba inaan laga furin bay u dhowday, waayo basharku maqaayiistuu wax ku qiimaynayo markay qaldantaa sida tana. markay qaldanto ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nin qaaruun lo odhan jiray oo xolo badnaa. qaaruun ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa mafaatiixda qasnadihiisa latanu'u bihi cusba min alrijaal. maaha qasnadda, furayaasha ayaan koox dadi qaadi karin baa ilaahay yidhi. nin maalqabeena buu ahaa, dabeetana intuu wixiisii bandhig buu sameeyey, wixiisii intuu isku xidhxidhay oo soo kaxaystuu soo bandhigay, magaalada maray. bini aadamkii magaalada joogay baa ilaahay ka warramayaa siday u arkaan ninka kan iyo wuxuu haysto. qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya yaa layta lana mila maa uutiya qaaruun innahu laduu xadin cadiim bay yidhahay. ilahay wuxuu uhi kuwii adduunkan doonayay ee aan wax ka dambeeyaba garanaynin waxay leeyihiin yaa layta lana. layta xarfu tamani wataraji, jeclaan lahayne alla bal maanu haysanna bay leeyihin wuxuu haysto oo kale. kani waa duu xadin cadiim, nasiib weyn qof la siiyey weeyaan, waa qof successfula bay leeyihin. ilaahay koox kaluu tilmaamayana wa qaala aladiina uutuu lcilm. labadan kooxood u fiirso sifaadka la kala siiyey. qole waxaa la yidhi yuriiduuna alxayaata addunya, nolol adduunun bay doonayaan. qolena waxaa la yidhi waa uutu lcilm, cilmaa la siiyey, cilmi xaqiiqiya la siiye. waxay garteen waxay meesha u joogaan, waxay garteen waxay u noolyihiin, waxay garteen macna alxayaa, waxay garteen nolosha iyo ahdaafta laga leeyay. waa ahlu cilmi kuwaas ah. kuwii cilmiga la siiyey waxay yidhaahdeen baa ilaahay yidhi waylakum hawaabu allahi khayrun liman aamana wacamila saalixa walaa yulaaqaaha ila asaabiruun. waar hoogaya bay leeyihin, magiciin ba'ye, hawaabu allahi khayrun liman aaman. ilaahay subxaana wa tacaala abaalmarkiisaa ka fiican waxaana arkaysaan oo dhan. ciddii iimaan iyo camal saalixa laga helo, ilahay wuxuu ina leeyahy markaynu aakhire arki kari weyno ina haaulaa'i yuxibuuna alcaajila wayadaruuna waraa'ahum yowman haqiila kalaa bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira. kuwani baa ilahay yidhi waxay jecel yihiin tan degdegta badan leh, waxaanay ilaabeen oo ka tageen maalin culus baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. aakhiray ilaabeen. tana isku nabayaanna ilaahay wuxuu ku qiimeeyey yaa ayuha annaasu ina wacda allahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu addunya walaa yagurannakum billahi algaruur. wardadow baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala, ilaahay yaboohiisu waa dhab ee adduunkan ha ku kadsoomina.
walaa yaguranakum billaahi algaruur waar mid wax kadiya rabbigin yuu idin dhaafinin ba alla leeyahy subxaana wa tacaala. nolosha markaynu eegno nolosha adduunku waa imisa dadka badh bay si qaldan ugu muuqataa. nolosha adduunkaagu adiga 60-70 years kama badna, 80 years, dadka in badan jira 100 sano. dadka kale adduunkooda adigu ha tirsani, adduunkooda ninka kale shaqadaada maaha. adduunku inay sii jiray iyo waxaas adiga waxba kuuma aha. adigu adduunka waxaad ka nooshay inta tan, adduunkaagu waa intan, adduunkaagu waa intan. maalinta naftu kaa baxda adiga qiyaamahaaga kuu kaca. nolol infinity ah oo aan dhammaadba lahayn iyo 60 sannadood nolol ah isu qiimee. 60kan sano haddaad dheregto iyo haddaad gaajooto, haddaad meel sare gaadho iyo haddaad meel hoose gaadho, it's matter of 60 years. waa 60 sano. laakiin nolosha dhabtahay waa ta dambaysa. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy aakhira waxaa la yidhaahdaa kam labithtum fi lardi cadada siniin. war dhulka imisaad joogteen baa la yidhaahdaa. qaaluu labithnaa yowman aw bacda yowm. maalin ama maalin badhkeed baanu joognay bay leeyihin. yacni noloshii oo dhamma way la yaraatay. nolosha bini aadamka qof inuu wax soo jiro isu haystaa ma jiro. fas'al ilcaadiin bay yidhahdeen, kuwii wax tirinayay bal ha la weydiiyo. ilaahay wuxuu leeyahay in labithtum ilaa qaliila low annakum kuntum taclamuun. waxaad joogteen wax yar baa alla leeyahy subxaana wa tacala. taasa xaqiiqa ah. haddaa wax garanaysaan in yar baa joogteen baa ilaahay leeyahy. walidaalika ayuha alikhwa, dadku tan dhowbu ku mashquula, wixii ka dambeeyeyna wuu arki waaye. yani shay yar haddaad isha ku soo dhoweyso wuu qarinaya. fartaydan ishaydoo dhan way qarin kartaa. haddii se la durkiyo way libdhaysaa. adduunkaynu isku soo dhoweynay dabeetana noloshaba waynaga qariyey. ma arki karaysid ilaa meersadiiska iyo mushaharka badan iyo waxaa mooyaane wax kale arki kari maysid. aakhirana waynu fogeynay ilaa ay libidhay, muuqanba weyday, xisaabtaba aanay ku jirin. ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga warramayaa 2 kooxood. bal 2dan kooxood dhegeyso. yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna billahi warasuulihi watujaahiduuna fi sabiili illahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun. kuwa iimaanka laga helayo baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala, ma idin tusiyaabaa ilaahay leeyahy tijaara, baaci mushtar, cadaab kulul lagaga badbaado. waa maxay? waa ilaahay aad rumayso, rasuulkiisi calayhi salaatu wasalaam aad rumayso, naf iyo nafiis waxa qaaliga ee agtaada yaaliyo xoog iyo xoolaba waxaad leedahay, oo aad ilaahay jidkii ugu dagaalantid, oo aad naf iyo shaydaan iyo waxa la halmaalaba iskaga rawdid. intaa haddaad samayso maxaad helaysaa? ilahi wuxuu yihi yakfir lakum dunuubakum wayudkhilkum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar wamasaakina tayiba fi jannaati cadn dalika alfawzu alcadiim. ilaahay dembigiinu dhaafaya oo jannooyin hoostooda webiyaal dareerayaan baa gelaysaa, iyo guryo fiicfiican iyo beeraha nagaadiga. intaa markii ilaahay sheegay baa rabbi wuxuu leeyahay dalik, kaas baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ayaa alfawz alcadiima, alfawz alcadiim, kaas baa guusha weyn baa ilaahay leeyahay. haddaad guul rabtaan waa kaa. maxaa ku xiga? wa ukhraa tuxibuunaha nasrun min allahi wa fatxun qariib baa ilahay. waxaa kaloo laydin siinayaa mid kaloo idinku jeceshihiin. oo waa maxay tan kaleynu jecellay? waa inaad guulaysato oo ciddii cadowgaaga haysayseen iyo waxaad ka guulaysato aa wax furataan oo dhul furataan. idinkaa taa jecel baa laleeyahy. kaannama aanay tani qiimo badan lahayn cinda allahi subxaana wa tacaala. wa ukhraa baa ilaahay ku tilmaamay. amaa fawska dhabta waxaa la yidhi waa tan.
وكوي دنيا مسلمين تها الدنيا نبغوليستي آخرنا الجنة قلي أي إلهي لي تدمون بجوشية تنا يدين كاتشعل ولا يدين قدرة كوح كلا إلهي القرآن كجور رميان نرشة لجوبي أو يجوبتي لنتي في سورة البروج إلهي كوح بكور رمي أصحاب الخدود هو نبقري سيدا حديث الصحيح مسلم كنت على شيء وطارجر هل كي يقول بيسكو سمعي تضمن أيوة أنا قايدين ربية ما كيد هذين إلهي بنور ربينا أيوة الجدد هالله شاح سكدها مقالة دبا الجدد لقت شاحي دبا الغش ذي ما ضحدي بصاف ورساتي ضدك كيسو قليل لي فور كونوا رب جاي من رميسانت إما إلهي بان رب جاي كل ذا ضدك تكين وديدين إن الرب جود دينيان طبقا لغورا نبي حلي عليه الصلاة والسلام قفض مرأي المي راع الرور والناس نوجا يستا ضبك الدلتمي دبت أنا المهي بيوم النحضة إلهي كيرا وكهد لي وحلي وما هوي صبر حقبة كتاجن تكوي يندب قالوا برد إلهي سبحانه وتعالى إنك القرآن بسودتي الصدق لين وغور إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هو إلهي وحكوت المامي نار وحبوبتين يقول لي ويذكر لبي أما قوي كلا إلهي وحلي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير كوي إيمانك يعمل كصالح على جهل إلا الجبيبة وحيلي ما إلهي لباره استود ودرير يوم وبيال مركزا إلهي وحلي ذلك الفوز الكبير الفوز الحقيقة طبعا آيات بقرآن كقصة أراري صدق حقيقة طبعا كم يدوا فوز العظيم هل كم يدوا فوز الكبير لما كم يدوا الفوز المبين لحقيقة طبعا كبا آخرين كورمية إلهي سبحانه وتعالى كوي لجوبي نلش أدون ضبي كجبحين عندنا إلهي وحلي ذلك الفوز الكبير جوش وين كواسة جول يستبع إلهي سبحانه وتعالى جوش كبير كواس بحنا كوي دريد نحوق بطي ما الله فري إلهي كوانا وحلي ذلك الفوز العظيم أنت ودي جنة الله وشاء وأخرى تحبونها أنت أدونك الله وشاء إذن أيها الإخوة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والربي مثلا بيعة العقبة الثانية هشيسك النبي وأنصار لقلي مركو هشيسك لقلي وحيد هذين حائنو هشيسة وأنكو قلب الله أنه وتسوه هجرون سواقو إيمانين النبي يقول نفتي إن إيمالك إني عرورتي إن وحا كرنا ورطاننا إيقا إلى عالم إنسان يعني هنا الدفاع إنسان واحد هذين وانكو دفاعنا إيه محان الله نعمنا نبي مو أوران وزيران نقنيسان دولة بوصة صارك هليسان مركان نقول استيد دولة السلامية لهلا حولها هليسان النبي يقول جنة ليلي واحد هذين قعدت سوتك أنه هشيسك كل قلنا كي وقول رايا يقال السعود يزعد ابن الزرار يروار سوق النبي قال لك قالين هشيسك وما فهمتين وحل يدين لا يبي والعرب والنبي ربا يدين كوضا مريسا ودقال بالا يدين كوضا قاضيا ودب بدن بالا كل من دونتان ورسدا ما كو أقبليسان وحل يدين نوا جنة لا يلي أقول أن ورينا يربطين قبلك ساسا هشيس النبي يقول قالين يعني وامحي dadkani hadafka weyn inay ku guuleystaan bay raadinayeen bal dawladii muslimiintu markay dhalatay kadib uu nabigu wuxuu ku yiri ansaaray dadku wuu badan doonaa idina waa yaraan doontaan dadku xoolaha way guran doonaan idina atharaba arki doontaan maxay idin samayn doontaan sabra buu ku yiri inta ila kulmaysaa adduunkan oo dhan qiimo kuma fadhiyo guusha dhabta ahi waa inaad aakhira badbaado guusha dhabta ahi وين النفط هذا عذاب كإلهي إن هذا عذاب كرمرتب
walidalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam qabiil baa u yimi qabaa'ilkii carbeed ka mida waxay idhahdeen waxaanu rabnaa inaannu islaamno marka waxaad nagu dartaa dad waxna bara xadiis saxiixa 70 raggii quraada la odhan jiray buu nebigu ku daray quraadani waa niman cilmiga u go'ay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam bay cilmiga ka baran jireen habeen oo dhan waa cibaadaysan jireen qur-aankaasay baran jireen maalintiina biyaha masaajidka dadku ku weysaystay cabbana way soo dhaamin jireen intay dabadda u baxaanoo xaabo iyo wax soo gurtaan ayay ahlu sufa dadka masaakiinta ee masaajidka degan siin jireen niman aakhiradooda u xoogsanaya bay ahaayeen dabeetana 70 nimankaa ka mida buu ku daro uu yidhi orda oo qabiilkaas wuu islaamayaa diinta soo bara qabiilkii meel dhexay u galeen 70kiiba way dileen 2 nin baa baxsaday nin ka mida anas ibnu malik abtigii baa ku jira xaram ibnu milxaan ayaa ku jira waraaquu nebigu u dhiibo uu yidhi ninka u dhiib madaxda waraaqdii isagoo aan weli dhiibin ayaa mu'aamaradii loo sameeyey xagga dambaa mid ka soo maray waran baa la geliyey waran baa inta xagga laga geliyey xagga laga soo tuuray u dhawaaqay wuxuu leeyahy fuztu warabbi alkacba waan guulaystay ilaaha kacbada laan ku dhaartay waan guulaystay buu leeyahy yani ninkani nolosha hadaf u ka lahaa hadaf ka lahaa inuu wax cuno oo cabbo ama guursado ama intaa ma ahayn intaa xayawaankuba waa sameeya hadaf buu nolosha ka lahaa oo ah inuu aakhiro badbaado oo guulaysto iyadoo la dilay oo adduunka kan weliba lagu dilay dhagar insaanku haddii si badheedha loo dilo wuxuu arkaa inay raganimo tahay laakiin inta la khiyaamayo in kow lagaga siiya insaanka way xagataa ma jecla iyadoo inta la khiyaameeyey aan goob raganimo loogu imanine midi hoosta laga geliyey oo waran lagu dilay ayuu haddana wuxuu leeyahay fuztu warabbi alkacba waan guulaystay rabbiga kacbada le baan ku dhaartay yacni mawaasiinta wax ku qiyaasay halbeegga uu sito ee uu nolosha guusheeda iyo guuldarradeeda ku qiyaasaya wuxuu ka gedisan yahay kaynu inagu sidano nolosha wuxuu arkayay markuu janno heli karo inuu guulaystay noloshii dhabta ahayd markaasuu gaadhay ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy wamaa haadihi alxayaatu addunya ilaa lahwan walacib waina addaara alaakhirata lahiya alxayawaan low kaanuu yaclamuun noloshan adduunyo waa madadaaliya cayaar baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala lahw waa madadaalo iyo cayaar ee nololi aakhiray jirtaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala nolosha waxaa la yidhahaa aakhiray jirtaa ina hada lahuwa alfawzu alcadiim limithli hada falyacmal alcaamiluun baa ilaahay leeyahy kaasaa guulaystay waxaynu leenahay waxa khasaaray ninka noloshan ka baxa ama qofta dumar ee noloshan ka baxda isagoo aan guusha xaqiijin noloshiisii o dhan wuu khasaaray wax macnaa may samaynin inuu shahaado soo qaatay sare inuu lacag sameeyey inuu carruur dhalay wax macnaa maysa inuu dowlad maamulay ilahi wuxuu leeyay qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan almubiin baa ilahay yidhi waxaad dadka ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ina alkhasiriin aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama kuwa khasaaray kuwa halaagsamee khasaaree noloshii hadafkeedii xaqiijin kari waayey waa aakhiro kuwa la cadaabuun baa la leeyahy alaa dalika huwa alkhusraanu almubiin baa ilaahay leeyahy walidaalika ayuha alikhwa waxaan leenahay nolosha ahdaafteeda dhabtaa dadka xaqiijiya waxaa u mudan rusushiiyo ambiyada haddana rusushiiyo ambiyada marka laga warramayo qisaska qur-aanka uu ka soo warramay ama nebi maxamed uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ambiyada waxaa ka mid a qaar la laayey ilahay waa ka qur-aanku leh fariiqan taqtuluun ambiyada qaar ka midaa la laayey
bale culamaa'i taariikh waxay yidhaahdaan qaar baa inta madaxa laga jaray imra'a baqiya loo hadiyeeyey madaxoodii. waxaa ka mid ah qaar dad badani raaceen oo dowlada dhisay oo xoogaystay. nebi daawuud, sulaymaan, boqortooyooyin waaweyn lahaa oo maqaayista bini aadamka ee dunawigaa guulaystay, boqorra noqday. bale sulaymaan oo kale jin iyo insiba loo sakhiray. technology aan maanta oo lin haystay waagaa, waayo in la yidhaahdo carshigii balqiis ee yeman yaalay in falastiin la keeno ilbiriqsi gudaheed, nowadays technologyga la hayo dhami ma samayn karo. technologyga la hayaa qalab sidaa uma diri kara maanta, cod buu sidaa u diri karaa iyo wixii la mid a. telefoonkaad dhow ka siiso milliseconds, 5-6 milliseconds baa laga yaabaa inuu qaato inuu dhanka kale ka dhaco. ama sariir dhan oo boqortooyo meel taalla in xagga kale laga tuuro weli technology uma hayo. nabiyullaahi sulaymaan awooddaasuu haystay. wamaca daalik kuwii la dilayna ilaahay wuxuu tilmaamaya inay faa'iiseen, waxba kale nolosha ka qaban. idan ayuha alikhwa, nolosha dhabta ah waa kaa. aqoonta dhabta ahi waa aqoontaad rabbigaa garatid. haddaad rabbi garan weydo brofessor kastoo aad tahay waxba sheegi mayso. se haddaad rabbigaa garato aqoonta kale markaas ayana macno leedahay, markaasay wax sheegaysa. waayo nebi sulaymaan ilaahi subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamaya aqoontu inay macno leedahay waxaa la tilmaamay qaala aladii cindahu cilmun, kii cilmun min alkitaab lahaa ayaa yidhi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. laynoma sheegin ma malag buu ahaa, ma jin buu ahaa, ma insu ahaa, waxba lagama warramin. sifa waaxida baa la siiyo ah inuu aqoon-yahan ahaa. aqoon-yahannimo ayuu kaga keenay carshigii balqiis halkaa oo xaggan kale ku geeyey wuxuu ahaaba. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa ambiyadii dunida tan xukuntay ee waaweynay aqoon. daawuud waasalnaa lahu alxadiid, sulaymaan cayn alqitri baalad. marka la eego aqoon bay wax ku xukumeen. teknolojiyadii markaa joogtay bay u sarreeyeen. dulqarnayn fattabaca sababan, taas baa la tilmaamaya. aqoontu qiimay leeday. laakiin haddii shayga dunidanba ugu weyn aad garan kari weydo, haddaad rabu samaawaati walardi khaaliqii ku abuuray garan kari weydo, haddaad garan kari weydo noloshaadu macnaha ay leedahay, aqoonta kale aad markaa garataa waxba sheegi mayso. waxba sheegi mayso markaa inaad gantaal cirka u diri kartaa, waxba sheegi mayso. waayo adaa taadii garan la, waxaad u nooshaad garan la'day. waxba sheegi mayso inaad quraanshada aqoon u leedahay adigoo rabu samaawaat aqoon u lahayn, garanaynin. muxuu kaa rabaa? walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy wacd allahi laa yukhlifu allahu wacdah walakina akthara annaasi laa yaclamuun. ilaahay subxaana wa tacaala yaboohiisa ma beeniyaa la yidhi, wuxuu ballan qaaday waa sidoodii. laakiin baa ilaahay yidhi dadka inta badani waxba garan mayso. aayadda ku xigtaa ilaahay wuxuu leeyahy yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun. yaclamuuna waxay garanayaan baa ilaahay yidhi daahiran min alxayaati addunya, muuqaal. kullu dawaahir alxayaa xataa maaha, daahir min dawaahir alxayaati addunya waa nakira. yaclamuuna daahiran, muuqaal ka mida muuqaalada noloshay aqoon u leeyihiin. laakiin wahum can alaakhirati hum gaafiluun baa ilahay yidhi, aakhiro oo dhan iyada waa ka maqantay. mufasiriinta qaarkood baa markay fasirayaan waxay yidhaahdaan, calaamatu shanqiitiy raxmat ullaahi calayh saaxib alkashaaf tafsiirkiisa buu soo qaadanaya, wuxuu leeyahy walakina akthara annaasi laa yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya waxay bedel ka tahay buu leeyahy walakina akthara annaasi laa yaclamuun. dadku waxba garan maayaan. markaasaa la yidhi waxay garanayaan in yaro kaannamaa intan ay garanayaan ay la macnatay laa yaclamuunkay ka mid tahy, qiimo ma leh.
وبدل عن ذلك دي الله إعرابه إليه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لا يعلمون ببدل كتهيبوا لي صاحب الكشاف الزمخشري. إذن haddaad aakhiro garan weydo, haddaad waxaad u nooshay garan weydo, haddaad hadafka nololeed garan weydo, haddaad nolosha waxaad ka qabanaysa garan weydo, waxa kale aad garataa macna samayn mayso marka. waa nafyi alcilm, waa cilmi aan waxba ka jirin, waa cilmi aan qiimo badan lahayn. cilmigu wuxuu qiimo leeyahay baynu leenahay oo wax lagu xisaabtamaya marka aad nolosha dhammaanteed fahmayso. dunida maanta joogta maqaayiis maadiya baa laynagu badiyey, maqaayiista maadiga ah baa laynagu badiyey. fitankeedii iyo imtixaankeedii baa tiro batay. habeen iyo maalinba waad shaqaynaysaa, waad ordaysaa, waad fooraysaa, waad socotaa. cimrigaagii iyo noloshaadii oo dhan waxaad siisay in yaroo maada inaad samayso, kamaad fakarin maxaa ka dambaynaya. kuma yeedhayno ma lihin adduunka baktiya, kuma lihin adduunka waxbaha baranan laguma laha. laakiin waxa lagu leeyahay waxaad adduunka ka qabanayso oo dhammi waa inuu u adeegayaa ta dambe inaad wax ku helayso. hadday aqoon tahay, aqoon aakhira wax ka taraysa waa inay noqotaa qaabkaad u adeegsanaysa. hadday hanti tahay, hanti aakhira wax ka taraysa waa inay noqotaa. hadday cilmi tahay, wax kastoo nolosha aad qabataa hadafkaaga kama dambayskaa waa inuu u adeegaya. haddaad si hadafkaa ilowdo ama si aad fogayso oo ay kuula muuqato waxaan noloshan adduun oo quri, waad khasaarta. waxaad qiimaysaa aakhira say dadka ula fududay. salaada subax oo meeshan ay joogtaan waxaan filayaa 3 waxoogaa hadda 4 wax dhiman bay soo gashaa. haddii lagu yidhaahdo shiftigaaga shaqadu 3 o'clock at night buu bilaabmaya, no one habsaamaya. saxiixa maaha, waayo waa shay aad rabto inaad xaqiijiso, qiimuu kula leeyahay agtaada. cidima habsaamayso. si kasta haddaad u hurdo weyntay 20 saacadood iyo moobil baad bixinaysaa kala dambeeya oo si kasta kuu kiciya. haddaan shalay iyo caawa toona seexanin waa masbad le waa ilaa shaqadii baad dee waayeysa. ama salaada subax daalana ilaahay waa gafuuru raxiime marka lasoo toosooban insha allah wixii la awoodo tukan doona. yacni qiimaanay kuu samaynaynin wasniga ay agtaada ku leedahay, nolosha aad ku xisaabtamaysa aanay meel buuran kaga jirin. saa daraaddeed iyadaad luminaysaa. hadday wax lumayso iyadoo ha lunto, ama tan waa inaanay lumin. waxa weeyaan waa nolosha ahdaaftii aynu isdaba marinay. siduu u kala weynaa goalskeennii aynu garan weynay, hadafku siduu u kala xooganay aynu garan weynay. markuu qofku yimaado meel maadadu qiimo ay samaynaysana oo bini aadamka lagu qiimaynaya inta jeebkiisa ku jirtana way ka darantay. shakhsiyadda bini aadamkii markay noqoto maxaad haysataa, jeebkaaga lacag intee leeg baa ku jirta. waayo lacagta jeebkaaga ku jirtaa dabaqo mucayanoo mujtamaca ka mid ay kugu daraysaa. haddaad bilyaneer tahay, majaalista bilyaneerada iyo kuwaasaad fadhiisanaysa. haddaad milyaneer tahay, majaalista milyaneerka. haddaad miskiin mushahar qaato tahayna kuwa mushaharka qaata meeshooda. haddaana dee waxbaba qaadanna kuwa meelaha iska fadhiyaad ku biiraysa. yacni waxaa qiimay insaanka looga dhigay jeebkiisa waxa ku jira, mana aha. insaanku wuxuu rumaysan yahay, wuxuu aaminsan yahay, wuxuu ku fakerayo, wuxuu garanayo, aqoontiisa waxaasu qiimo ku leeyahay. muslimka agtiisa waa kaa. idan ayuha alikhwa, war badan baynu masaladan ka odhan karaynaa, laakiin isagoo kooban wuxuu yahay waxa kaloo dhammoo aqooni. ilaahay wuxuu leeya yasaluunaka can alruux qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila. aqoon waxaa laydinka siiyey way koobanta. waxaase laynaga rabaa noloshan inaynan
isku hadlaynin oo ilaabin. ilaahay qaar buu wuxuu ku tilmaamayaa falamaa jaa'athum rusuluhum bilbayinaati farixuu bimaa cindahum min alcilm. rusushu markay bayinaadka cadcad ula timi qaar baa waxay ku farxeen baa la yidhi, waxay ku kibreen bimaa cindahum min alcilm. waxoogaagii aqoonta ay haysteen ayaa la buurraaday. wixii waxyigee absolute valuegii samada ka yimi bay ilaabeen. ilaahay wuxuu leeyay waxaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi'uun. rabbi wuxuu leeyay faacrid can man tawallaa can dikrina walam yurid ila alxayaata addunya dalika mablaguhum min alcilm. iskaga tag baa nebi maxamed la yidhi, ka jeeso can man tawallaa can dikrina, ka annaga inuu na xuso ka jeestay baa rabbi leeyay subxaana wa tacaala, ee aan doonaynin noloshan adduun mooyaane wax kale. waayo kuwan baa ilaahay yidhi dalika mablaguhum min alcilm. aqoontooda intaa baa ilaahay leeyay, waa maangaabnimo. ayuha alaxiba, caqliga dhabtahay iyo mufakirnimada iyo filosofnimada dhabtahay waa ta naar kaa badbaadisa. ama hadduu caqligaaga iyo intelligencekaaga iyo kartidaada iyo qofnimadaadu cadaab kaa badbaadin kari waayaan, waa nothing. ilaahay aakhire qaar buu tilmaamaya la odhanayo war maxaa naarta idin geliyey? wa qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir bay leeyihin. dunida markaanu joognay haddaanu dhega yeelan lahayn ama caqli aanu qabi lahayn bay leeyihin. yani caqligu hadduu ku dhaafiyo aakhirada dhan caqli maaha. asxaabu saciirka kumaanan biireen bay leeyihin haddaanu markaanu dunida joognay dad raashanale aanu ahaan lahayn, dad caqliga isticmaala haddaanu ahaan lahayn. waayo caqliga toosani wuxuu keenayaa inaad aakhira rumayso, inayd rabu samaawaati walarda rumayso, inaad rususha rumayso keenaya. ayuha alikhwa, wadanadan aad joogtaan dhaldhalaalka nololeed baa bini aadamka mashquuliyey. sayniska iyo aqoonta bini aadamkee la sheegayo o dhamme waa one thing buu qabtaa. all science muxuu qabtaa? waxay idhahdaan space and time buu yareeyaa bes. marka aqoonta bini aadamku korodhaba timekii wax lagu qabanayay efficiency-gii wuu kordhaa, spacekii qalabka la isticmaalayay la dhigayana wuu la yarayn karaa. waa intaa u qarnigan iyo qarnigii hore labadaba waa la noolaayay. qalabka la isticmaalayana wuu kala yarayay, wuu sii yaraanaya. timeka wax lagu qabanayaana wuu soo yaraanaya. intaasuu technologyga tirada badan ee la sheegaya uu keena. laakiin waxaa ka dambeeya intan oo dhan kullu nafsin daa'iqati lmowt, daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna wujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz. alfaa'izuun 4 aayadood baa qur-aanka ku soo aroray. faa'izuun 4 iyaga waxay ka warramayaan aakhira. 16 aayadood baa alfawz alcadiim aw fawz alkabiir aw fawz almubiin ku soo arooray. 16 waxay ka warramayaan aakhira. kaannamaa qur-aanku aanu ictiraafsanayn fawz aan kaa ahayn inaanu jirinba. waxaan kaloo dhami inay yihiin wax lagu madadaasho, wax wakhti yar shaqeeya. amaa fawzka dhabtahay waa kaa jid qulana wuu leeyihi. yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waquluu qawlan sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum waman yutic illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima. jidka loo maro kaa in lagu guulaystaana waa kaa. marka waxaan ku soo koobaya adduunkan iyo xoogsigiisa in badan laysuma tilmaamo naftaada ku mashquula. waxaan rabaa inaad nolosha meel kaga dartaan aakhiro xoogsigeedii. aakhiro xoogsigeeda inaad nolosha meel kaga darto, inaad ogaato guushaada dhabta ah iyo nolosha waxaad fahamtay marka aad garato waxa aad u nooshay. wa ilaa waana lagu dhalay waana dhimatay, waxay qiimo samaynayso kale ma jirto. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala
inuu noloshayna fahamsiiyo. saxaabadii markay noloshaas si dhaba u fahmeen ayay adduunkanna magac iyo maamuus ku yeeshay. adduunkanna markaasay wax ka beddeleen. markii hore niman reer baadiye ah oo iska xoola dhaqata oo waxba haysanin, haddii xoola lagu xisaabtamo la odhan karo waa caydh, haddii magac iyo maamuus lagu xisaabtamo dowlad ba aan ahayn. saxaaraha ku nool waxa beddelay oo markay aakhira dhadhan u samaysay, markaasay adduunkanna magac iyo maamuus ku yeesheen. within 50 years ayay mashriq iyo maqrib kaga taliyeen, wixii dunida dowlad jirtay dhaafeen. labadii dowladood ee dunida ugu xooga badnaa ka xoog badiyeen, nolosha qiimo u sameeyeen, dunida maamuleen, iyagoo tii aakhirana ku guulaystay. muslimku hadduu taa ilaabo tanna guulaysan maayo, aakhirana dee ilaahay baa garanaya, kama muuqato waddada la hayaa maaha tii aakhirana lagu gaadhaya, adduunna lagu gaadhaya. sala allahu calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam. alxamdu lilahi rabbil